caasho waxay ku dhacay aad ayaan uga xumahay iyo waxa ay Soomaalida kala kulantay sidoo kaleeto waa ka xumahay in ay Soomaalida sidaas ugu falceliyaan kiiska caasho waa hooyo ciyaalka laga qaatay inta kiiskeeda way og tahay inta aanan ogeyna hadda ogaada ciyaalkeed markii 3 canug ayaa laga qaatay midda ugu yar waa gabar ayadoo maxaa la dhahay yariis oo baby ah in laga qaataa jeclaa welina way yar tahay oo hadda ilmo sanad ah ku qiyaasaya camal waaye markaa shaqligeeda aan fiiriyay markii intaas laga soo gudbo caasho gabadheeda maxaa la dhahay shalay ayaa si rasmi ah waxaa loogu wareejiyay hooyo kaleeto yacni naag kaleeto oo la rabo in ay hooyo u noqoto ay si rasmi ula wareegtay ilaa ay ka qaangaarayso soo caashana qaracan meeshaas way ka qaracantay waxay sugaysay in la ogeysiiyo sida u maleynaayo kulay wadamada isma lahan sharcigooda wadamada qaarkood waa la ogeysiiyaa u maleynaa waalidka markii qof canugiisa qof rasmi ah lagu wareejinayo iyo qof ku meel gaar ah step waa qolada socialka markay qaataan marmar qof ku meel gaar ah lagu wareejiyaa marna qof oo rasmi ah oo haysanaya ilmahaas intuu ka qaangaarayo lagu wareejiyaa soo caasho waxay sugaysay in la ogeysiiyo ugu yaraan ay ogaato ilmaheeda maxaa la dhahay ama haddii kaleeto xitaa ay u hesho ikhtiyaar in ay ilmaheeda waalid ay u doori karto ama Soomaali yacni maxaa la dhahay oo kafaala qaado ay heli karto intaasba caasho ma helin shalay markay isdhahday ilmaheeda booqo ayay waxay la kulantay in maxaa la dhahayay ilmaheedii waalid kaleeto si rasmi ah loogu wareejiyay oo ilmaheedii la qaatayba oo qolada socialka ay u sheegeen ilaa ay ka qaangaarto ka soka yacni ilmahaas inaysan arkaynin wallaahi waa xanuun arrin xanuun badan waa ilaahay ka dulqaado musiibadaas xanuun kale oo gabadhaas ku dhacday ilmaheedana Allah u soo celiyo laakiin sida ay Soomaalida qaarkood ma dhihi karo kulligooda qaarkood ay ugu falceliyeen waxay tahay in ay qaarkood ay badhaheenba maxaa la dhahay yacni imtixaanka ku haysta wax yar ma ahan waalidka xaqiisa laga haystaa waalidka ku habaaray waxyaalo noocaas wax yacni oo qofka qalbiga bini'aadanka oo dhibaatada haysata qalbigiisa yacni dhibaatada ku siyaadinaya ay dadka qaarkood maxaa la dhahay ay ku dhaheen haddana ma ahan markii ugu horeysay arrintaas Soomaalida qaarkood markasta ay gabadhaas ku dhahan kaliya Soomaalida maxaa la dhahay qofka dhibaatada haysata dhibaatadiisa mid kale ugu sii daraan taasna maxaa la dhahay waa jaahilnimo iyo dad maxaa la dhahay maanta dad islaamaad yihiin oo diinta maxaa la dhahay diinta ku faana oo diinta yaqaana Soomaaliyay ilaahay waa inaad uga cabsataan qofka dhibaatada haysta dhibaatadiisa dhibaataha ugu darina wallahi xanuun waayo qofkii xanuun arkay oo hooyo un baa dareemi kara maxaa la dhahay gabadhaas waxa haysta wallahi shalay xitaa inaan ka soo hadlo marbi sababtoo ana qalbi xanuun dareemayo wallahi waa la ooyay marka fiidiyogeeda arkay in aan ka soo hadlo iska dhaaf laakiin maanta mid igu kaliftay in aan ka soo hadlo waxa waaye Soomaalida yacni hadalkooda ee dhibsatay ee shalay xitaa xalimiya life soo gashay ee ka hadashay dhahday waa dhibsada iga dhaafa war qofkii nolosha ilaahay u hagaajinayo kuma xirna caasinimo iyo baarinimo kuma xirno hada min indillah qofka ilaahay nolosha u hagaajinayo uu u talgal in uu hagaajiyo uu hagaajina ilaahay subhanahu wa ta'ala annaga bas mas'uul naga ma ahan umada gaalu mas'uul ka yahay islaam nooc kasta diin nooc kasta la haystaa waana aragteen maxaa la dhahay qof kasto maxaa la dhahay nolosha uu ku nool yahay ma ahan macnaheedu qofka gaalka ma ahan macnaheedu qofka gaalka in adduunyada maxaa la dhahay lagu cadaadinayo imtixaan ku maray ma ahan nolol qurux badan oo iskaga noolaana laga yaabo aakhire in lagu iqaabo marka qofka mu'minka oo adduunyada lagu imtixaaman laga yaabo aakhire inuu maxaa la dhahay nolol yacni qurux badan oo inuu ku noolaado soo marka ma ahan inaa maxaa la dhahay maanta dad jaahiliin oo waxba aanan aqoonin iska dhigtaan oo qofka qalbigiisa hadallo maxaa la dhahay aanan u qalbeenin ku dhahdaan taas aad iyo aad ugu qaldantihiin gabadhan ilaahay uga cabsada والله قصة محل لها النبي أيوب قف كستو محل لها ما أنت وح أن فهنسنين إنه دب السراعة أيان رجينا يا النبي أيوب اتحانا كل دعي أصدقوا النبي أو محل لها سبحانه وتعالى إلهي كحرا أو يعني النبي مركل يقول إنه قف مخلص الدين أهواي قف إلهي سبحانه وتعالى وكتحدي رواي إلهي اتحانه وكاني اتحانك وكان محاول إن مالكي محل لها وهالمر بيره سبحي سدان الدب قبصدين وجبتين كو يتمون ويلميا ولها مثل لبي يتمون ميلهاس لبي يتمون كويل هالمر سم وإلهي كسي وكقاضي iyo gabdho xitaa u joogeen wixii dhan hantidii awlaadii ilaahay ka qaaday cudur ilaahay ku itixaamay korkiisa go'go'ay hadalka bini aadanka inaan loo adkeysanaynin qisadan wallahi waxay sheegaysaa bini aadanka hadalkiisa wax ka xanuun badan inuusan jirin itixaanka qofka haysta waxa ka xanuun badan hadalka bini aadanka intaasoo itixaan markuu ku dhacay magaaladii uu deganaa ay markuu cudurku ku dhacay oo korkiisa tixri ka baxayo oo go'go'ay
dadkii magaalada waxay dhaheen waxa lagugu itixaami wax yar ma ahane dembiga aa gashay annaga masiibadaada hana qaadsiinin waxay dhaheen magaalada nooga guur oo nooga bax sidaas darteed uu uga guuray meel duur ah ay asii xaaskiisa ay ku noolaan jireen xaaskiisa u shaqayn jirtay oo cidaha intay usoo shaqaysay nolosha soo dhici jirtay markasta waxay dhihi jirtay nabiyo ilaahay noo weydii inuu ilaahay caafimaadkaada kuu soo celiyo oo xaaladeen ay hagaagto oo magaalada askaga laabano markaasuu dhihi jiray ilaahay subxaana watacaala oo intaasoo sano aniga nimco iyo barwaaqo igu nooleysiiyey oo wax kasta i siiyey maanta dhowr iyo 10 sano oo itixaan i haysto wuxuu dhihi jiray itixaankayga waa ku sabraaya wallahi qisadan waa la qiiroodaa soo marka itixaankayga waa ku sabraaya uu dhihi jiray laakiin maalin ayuu adkeysan waayey maalintaas waxaa waaye inkastoo hadalkaas markasta ee dadka deegaanka ay dhihi jireen wuxuu ilaahay kugu itixaamay wax yar ma ahan la dhihi jiray yacni qof xun laga dhigi jiray uu u adkeysan jiray laakiin maalintuu ilaahay farajku u furi doono waaye uu ducada uu ku duceysan doono 2 nin aa u imaatay maalintaas 2 nin markay u imaadeen asagoo xaggoo kale jifinta ay salaamiina xaggoo kale ka istaageen waxay dhaheen waxaa lagu itixaamay yacni wax yar ma ahan way xanteen markuu xantii oo hadalkii xanuunka oo dhegihiisa ku dhacay markaasuu wuxuu dhahay rabbi yamassani durru wa anta arxamu raaximiin ilaahow dhibaataa i taabatay adaa arxamur raaximiina ilaahow dhibaatadan iga dulqaad yacni intaasoo dhibaato usoo sabray laakiin hadalka bini aadanka inaan loo sabri karin maxaa idinkaga cad qisada nebi ayuub soo dhibaatadii ilaahay subxaanahu watacaala isla markii uu ilaahay ka ajiibay wuu ka aqbalay waxaa la dhahay istaag labada fariiso labadaada lugood dhulka ku dhufo biyaha kaaga soo baxana maxaa la dhahay ku qabayso subxaan allah markuu sidaas sameeyey isla markii mucjisada ilaahay yacni hal maraa la bedelay aa lagu soo celiyay qof yar oo dhalinyaro ah oo caafimaad qaba oo jasadkiisa iyo wixiisa dhan loo soo celiyay iyo jildigiisa ka warrama ilaahay subxaana allah maqaadirtiisa marka soomaaliyay dad islaamaad tihiin oo diintana maxaa la dhahay yaqaana laakiin dhaqanka aad leedihiin dhaqan qof muslima uu ku dhaqmo ma ahan ilaahay uga cabsada qofka bini aadanka ah dadka xilligaas sidaas u dhaqmaayay jaahilnimo haysatay soo maanta maxaa la dhahayay annaga alxamdulilah jaahilnimada xilligan waa laga baxay qisooyinka inaad dib u raacdaan oo maxaa la dhahayay itixaanada ay nebiyada soo mareen wax kasta inaad kuwaanse qaadataan qofka bini aadankana aad dhiirigelisaan aad dhahdaan waa ka baxaysaa insha allah waxaan waxba ma ahan videogu wuu dheeraaday waxaan rajaynayaa hadalkayga inaad meel dheer gaarsiisaan oo videogana oo sheer garaysaan gabadhaas iyo gabdho kaleeto itixaan haystan ayagana itixaanka ilaahay inuu si fudud uga dulqaado ilaahay subxaana watacaala aan uga baryayaa marka ilaahay qofka ha looga cabsado yacni ma ahan caasho bes waa u fiirsaday soomaalida dhaqankeeda qofaa ilmo xanuunsan haysto qofka waxaa la leeyahay maxaa la dhahay yacni waxaa ka dhigaysiin qofka inuu dambiilo yahayo waxaas ilmaha uga xanuunsadeen inuuba asaga qof xun yahay camal ilmo xanuunsan uu haystaa magacaa uga dhigaysiin heblaayadii ilmo xanuunsan haysatay qofkii tooshaa ka daba qaadanaysiin qofkii asagoo itixaan haysta noloshaasii nacsiinaysiin wallaahi waxa ku dhaqmaysiin wax loo adkeysan kara ma ahan waxaan jeclaan lahaa culimmada soomaalida inay kasoo hadlaan ay si fiican idinkaga wacyigeliyaan dhaqankan xun haysataan wallaahi dhunta ay kala go'day videogan sheer garay ilaahay ummadda uga cabsada ilaahay subxaana watacaala uga cabsada inuu adinka waxaas idinku itixaami karo waxaa kaloona ogaataan qofka itixaan haysto ama masiibo haysata ducadiisana waa aqbal habaarkiisana waa aqbal labadaas waa inaad ku tashataan hadduu qof maanta masiibo haysta uu ku habaaro uu ku dhaho ilaahow waxa aniga i haysta inkastoo dadka ay badanay dadka habaarinba ilaahow ku wareeji ilaahow kugu soo wareejin karaa marka ilaahay uga cabsada qofka itixaanka haysta ha ku diganina ilaahay gabadhan itixaanka ha ka dulqaado ilaahay ilmaheeda ha u soo celiyo hooyooyinka ilmaha laga qaatay ayagana ilmahooda allah u soo celiyo kuwa hadda maxaa la dhahayo qof kastoo owlaad haystan owlaadiisa ilaahay ha ku xifdiyo u duceeya khayr qofka bini aadanka inaa khayr u rajaysaan wax ka fiican malahan ajarkeedaa leedihiin marka qof bini aadan khayr u rajaysid aa u ducaysid aa hadal wanaagsan aa dhahdid adigana waxaa leedahay qofkaas ajarkiisa maxaa dhahay malaa'igta garbahaada saaran way kuu duceynaysaa wanaaga qofkaas aa ilaahay uga barisay ee malaa'igtana adina ilaahay ay kaaga baryaysaa marka inaa qofka lagu digto waa xanuun qof bini aadan weligaa nooc kastuu noqdo ha ku diganin hadal yaroo aa isleedihiin maxaa la dhahay qofkan dhibaato u keenaa ha dhihina ilaahay ummadda ilaahay uga cabsada culimmadana hadday videogaygan arkaan inay ummadda si fiican u wacyigeliyaan ee jaahilnimada ummadda ay ku jiraan in ay ka saaraan sababtoo ah adduunyada korkeeda jaahilnimada wax ka xun ma lahan aakhiro bes inaa aakhiro waa ka fikirnaa qof walba uu dadaalaa laakiin
jaahilnimada ummadda in laga saarana way fiican tahay oo wax la fahansiiyo oo wax loo sheego. Soomaalida weli dad jaahiliin ayay u egyihiin. Videogan share garay meel dheerna gaarsiiya.